Soomaalidu waxay tiraahdaa niman shaqaysan shahmaado. Markaan soo galay hotelka Royal oo kamid ah hotelada deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. waxaan si kadis u arkay wiilkan dhalinyarta ah ee shaqaysanaya ee baalashlaha oo haddana buuggiisii iyo qalinkiisii ay garab yaalaan waxna qoraya waxna akhrinaya haddana shaqadiisa wata. Warbixintan ayaan idinka diyaariyay. Waxaan ka qaatay ogolaansho inaan muuqaalka yarka idinla wadaago. soo dhow magacaaga ku bilow ustaad. magacayga Bilal Cabdi Xasan Baldhaa maasha Allah markaan waan iska shaqaysanayaa waxna waan baranayaa de marka alxamdulillah wallahi barwaaqo marka dad badan waxaa jira dhalinyarada Soomaaliyeed aan shaqaysanin marka waxaan kula talinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay soo baxaan oo shaqaystaan xaafadaha iyo wixii dibshinimo iyo wixii carruurnimo iska dayaan shaqo u soo diyaar garoobaan intaas kula talina. waxbarashada ma lacagta halkan aad ka shaqaysaad iskaga bixisaa saan u fahmay macnaha waxaad qoraysaa hadda wuxuu ahaa luqadii baad baranaysay oo bareefad ahaan baan u gartay soo saas ma waxaan shaqaysta iskaga bixiyaa wixii markaan ku shaqaysto dee waxna xaafadan ka bishaa waxna anaas iskaga bixta wixii bisheeda waxbarashadana iskaga bixiyaa markaasaa weeye insha Allah. markaynu ka nimaadno taa dad waxaa jira aaminsan waa lagu dhacaa waxbarashada sababta loo dhacaya maxay tahay talo ma akhris la'aanta haddana waxay soo jiitay inaad waxna shaqaysanayso dhanka kalena aad wax ka qorayso marka ma waxbarasho la'aanta akhris la'aanta u dhacayaan mise wax kala jira waxa u dhacayaan horta waxyaalo fara badan baa u dhacayaan wax akhris la'aanta ani horta marka inta badan macalinkayga wuxuu ila taliyaa haddii aad dadaashid oo akhriskaagu badnaado oo luqadda baranaysa halkeedu badnaado 100% inaad keenayso waxbarashadaada imtixaanka sababtoo ah waxyaalo badan waxaa jira dad intay waxbarasho tagaan buugga marka soo qortaan meel iskaga tuuro waxyaan haddaad aad akhriska u badiso luqadaada 100% waad keenaysaa. iskool ma dhigata isaga iyo quraani iskool ma dhigto quraan laakiin aduu dhowr bilood ka baagi dambeysay wali hadda wax ma dhigto bareefta dhigta laakiin waad ku qanacsan tahay inaad waxna barato shaqaysatana alxamdulillah wallahi aad baan u qanacsanahay ma ku dhiirigeliyaan dadku aad si fiican waliba aad waxaan ugu mahadnaqayaa customerkayga aniga u shaqeeyo iyo dadka meesha meeradan ka shaqeeyo iskalaba hotelka Royal aad bay ii dhiirigeliyaan maasha Allah wallahi dhiirigelin waxay siiyaan yaab leh oo sid mar kasta shaqayso waxna baro si fiican bay ii dhiirigeliyaan.